shalay iimaantay waxa ay ku kala duwan yihiin ayaa waxa ay tahay shalay xasan sheekh maxamuud gacantiisa ayuu kaga soo shaqeeyay in kuraasta xildhibaanada uu doonayo oo soo saarto taas waxaa ka duwan maantay doorashada socota maanta waxaa soo saaranayo soo xulanayo waliba tartanka keenayo waa nabadoonada kursiga iska leh madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya wadane xasan sheekh maxamuud wuxuu hool iskugu keenay 270 xildhibaan ayuu hal meel iskugu keenay waa habeenkii ugu dambeysay lagu sogootiyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waliba ahayd sagootintii ugu dambeysay ee qof lagu sagootiyo laakiin kaarkii ay ka xogteen xasan sheekh maxamuud way ka badashteen waxay u badashteen hab ka duwan habkii laga filayay laakiinse waxaan ku hayaa cadeymo muujinayo tirada saxda ah ee one time ama hal habeen oo iskugu geeyay hal hool waliba uu ku shirsiiyay ay ku sagootiyeen ugu hambalyeynayeen ayaan ku hayaa halkan ayaan kugu soo bandhigi doonaa cadeymo intaas ka badan waliba codadkii oo helay markii ay doorashada socotay waan gudagalaynaa fiidiyogeena waan ku soo bandhigi doonaa fadlan waxaan ka codsanaa inaad fiidiyoga waan sii share gareyso la gareyso la wadaagto saaxiibadaada kaleeto waxaan ku bilaabi doonaa fiidiyogani oo ah 2017 wuxuu hal meel iskugu keenay 190 xildhibaan ayuu hal meel iskugu keenay waliba waxay ugu hambalyeeyeen qaabka wanaagsan oo uga soo xushtay xildhibaanada kaleeto haatan waxa laga cabanayaa doorashada socoto waxa kaliya ka cabanayo oo aan sida toos kugu muujinaa waxay tahay waa raggii shalay oo xasan sheekh maxamuud kuraasi ku soo saartay isaga gacantiisa uga soo baxsaday shalay iimaantay waxa ay ku kala duwan yihiin ayaa waxa ay tahay shalay xasan sheekh maxamuud gacantiisa ayuu kaga soo shaqeeyay in kuraasta xildhibaanada uu doonayo oo soo saarto taas waxaa ka duwan maantay doorashada socota maanta waxaa soo saaranayo soo xulanayo waliba tartanka keenayo waa nabadoonada kursiga iska leh nabadoonada waxay soo saaranayaan ama maanta soo magacaabanayaan xildhibaanada u tartamaya kursiga waxay sidoo kale soo saaranayaan 101 ergo ayay soo saaranayaan waxayna u codeynayaan xildhibaanada iyaga ay doonayaan halkii shalay xasan sheekh maxamuud gacantiisa ku soo saaranayay boobkii qaawanaay ay socotay laakiin maantay uu taagan yahay doorashada socoto waa mid boob lagu boobayo dowladnimada Soomaaliya aan ku bilaabano mar rabo inaan ku sii faafahiyo fiidiyogana rabnaa inaan guda galno si oosan fiidiyoga nooga dheeraanin halkan bal arag meeqa ku muuqato xildhibaanaha waliba koramkii uga baahnaa 270 madama halkan waa 190 xildhibaan ayaa halkan markaan taagan waxa haastan 80 xildhibaan ayaa markaan wali iman in ay soo baxaan laakiin waxa la buuxinayaa 80 kaleeto laba habeen kadib ayaa markaan kaleeto la iskugu keeni doonaa hal meel sida wararkan waxa meesha ka buuxo waa ragga dam jidid ayaa halkan ka wada buuxo waxay ugu hambalyeynayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud guuleystaha macnaha ugu heelan yahay 4 sano ugu soo heelanay sida wanaagsan ugu soo shaqeeyay dowladnimada ay markaan waxay ka shaqeynayaan in ay yiraahdaan doorashada mar kale dib ugu soo laabo fiidiyogani waxa ka muuqdo rag badan adiga aad taqaanay dumar badan aad taqaanay halkan waxa ku jiro sida aniga aan tilmaami karo hadda ninka qaylinaya Tuuriga shalay kursigiisa xoog ayaa loogu soo booqday waxa ii muuqdo Muuse Soodi waxa ii muuqdo madaxweynaha galmudug Hirshabeelle Cali Goolal sidoo kale waxa halkan ka dhaxarkaa rag badan oo aan magacyada tilmaami karin laakiin xildhibaano badan oo wajigooda ana qaana ayaa ku jiro sidoo kale waxa ku jiro intaas oo xildhibaana waa dadkii codka lahaa waa dadkii wax dooran lahaa shacbiga Soomaaliyeed codkooda hambaarsanaa
waxaan aaminsanahay inta fadhiido ayaaba maaragtay sidii looga talagay doorashada gaarsiisan in kale oo kuwaan la madaxo caawa imaanin oo anigu aan ku warqabno ayagana maaragtay diyaar oo inay ku doortaan madaxweyne waa magaalada waa ku jiraan dhammaan anaga waxaan isku go'aaminaa in ololahayni meesha aan ka wadno limiyo aan ka wadno hadda waxaa la sheegay quorumka intaasuu yahay intii maqan kolleyba ayagan mataqaana madaxweyne intaan way ka badan yihiin xildhibaanada oo diyaaru ah in qabyadii aad ka dhigtay haludhig u dhigtay ololahaadi qabyi qofkeeda dhammaystira in lagu dhammaystiro waxaan soo jeedin lahaa dhammaanteen inaynu taa isku raacno annaga murashax kale waxba uma dhimayno waa murashaxiin waa tartami karaan laakiin endorsementigeena haddaan nahay xildhibaanada halka fadhiya waxaynu siinay madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilkasnimada iyo biseylka allahu akbar farayaan iyo waaqicinimada waxayna farayaan wadada ciriiriga ah ee xasan sheekh uu rabo inuu mar labaad nagu hogaamiyo inaan marno annaga waxaan nahay xildhibaanada usoo guntaday usoo dhibistay inay ku taageeraan inta halkaan fadhida caawa taageerada u joogaan madaxweyne soo noqona saddexaad caafimaad aad ku hanata allah ku siiyo dadkii kula shaqay lahay oo khayrka qabana markaan dadku waad kala baratay si fiican u xubo labada dabaqo ee bulshadaada ay ka kooban tahay madaxweyne hadduu ilaahay kuu sakeeyo kursiga aad ku fadhido isagaa bixiya ninuu siiyeyna kama diidi karo ama cid hor istaagi kartana ma jirto ninuu asiga u diidan nin siin karta ma jirto maalinta ilaahay ku siiyo waxaan jecelahay inaad gabaygaa reference ka dhigatid ee jacburka sanatamaha hadlaan baa layidhi sanatarkii duqa ahaana waa fadhiyaa kulli wuu imaan doonay aad iyo aad baan idiin salaamahayaa 180 ama 190 xildhibaanna waxaan u malaynayaa buulkuma jiraan bannaanka is soo dhigeen horta ayaga waxaan uga farxihaa xilka waa idiin rabaa laakiin aniga idinku cadiyo ma halkaan hadda joogo ma idin dhaafay laakiin halkaan joogo ayaan rabaa inaan wixii uun hadala oon dhihi kara idiin dhaho qoftaan dhowri kara aan dhowro qoftaan dhihi karo qoftaan madaxweyne waxbaa mudan tahay ka joogna diyaarano ah madaxweyne kasta maahan mar kale waxaan rabaa inaan idin mahad celiyo kalsoonida aad isiiseen iyo sida aad maxaa u caddayseen taageerada aad yahaysaan waa ka mahad celinaya aad iyo aad anigana waxaan idin ballan qaadaynaa mar walba kalsoonidaasi inaanay dhumin inaan ku shaqeeyo oon fariintaasi aan hayo mar walba oo ay noqoto waxaad igula xisaabtantaan oo ay noqoto talada dalka uu ku soconayahay mid aad raalli ka tihiin oo aanay noqonin tala muxuu ahay meel kale lagama guuriyo waxaan kaloo idin ballan qaadaya dalka Soomaaliya dadkiisa karaamada ay leeyihiin hantida dalkan uu leeyahay oo nooc walba leh oo bad iyo berri iyo beer intaba leh ee ilaahay ummadda ku manaystay koow inaan ilaaliyo oo aanan macna daraas gacanteena aan uga bixin mar labaad in aanan si xun loo isticmaalin ee jiilash imaan doonaahi waxay ku hirtaan oo meel u yaalla inay noqotaa daalaya taasna muxuu ahaay inaad codkiina isiisiin waa ugu baahan laakiin taasna inaad ayada la sideeda igu saacidaan ugu kaalmaysaan u baahanahay laakiin waa la imaan doonaa barnaamijkeeda oo kale okay waxaan rabaa markii aan kugu dheeraane video kaleeto aan inaan ku guda gal waxay tahay doorashadii markii xaaladdu sida taa ay marayso oo la iskugu yeertay xildhibaanadii ugu badnaay hoolkiina la iskugu keenay ayaa markaani waxaa la gaaray natiijada codkii in lagu dhawaaqo markii la tagay xerada Efesioni ee doorashadii markii lagu dhawaaqay bal dhageyso codadka uu helay iyo codka hadda ugu dambeysay oo meesha looga dhawaaqay ee quorumka 190 xildhibaan waxa ku dheer natiijada balaan aragno rag badan oo aqli leh ayaa jiro oo og halka dalkani loo jihay karo in oosan ahayn halkii oo shalay lagu soo boobay hantida shacabka balse halkani loo bedel ay tahay in ummadda shacabka hantidu dib loogu celiyo aan dhageysana marka codkan مشرف مدحوين ولا شريف شيخ احمد يقول هذا افرتني لحظ
مدن مشرف مدحوينه حسن الشيخ محمود وهذه سقاشن يتضبط مدن محمد عبد الله فرماجو وهذه بقول سجيتني أفر صادر هذا anigu kuma darin xataa fiidiyowga ahay 270 xildhibaan hal meel la iskugu keenay laakiin waxaan ku tusiyay in 190 xildhibaan waxa uu codeysay halkaani natiijada codeynta ahayd 190 xildhibaan halkii raba inay codeeyaan ayaa waxa codeysay 97 xildhibaan aaway meeydi 190 xildhibaan ee lagu dhawaaqay koromkooda shalay halkaas ayuu taagnaa in kursiga isaga uu leeyahay oo xoog ku soo qaato halka maanta uu leeyahay sharci darar ay wadankani ku socdaa iyadoo aragtaan habka ay doorashada u socoto ay ka duwan tahay shalay isaga ayaa maamulay laakiin maanta waxa maamul ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble halkaas ay dowladnimada laga soo waday halka ay taagan tahay laftarkaaga waa la socotaa qabyaaladu madax ka gashay inaad dadku ku eedeyso madaxweynaha ku aflagaadeyso xasan sheekh maxamed kuma aflagaadey aniga waa madaxweynahayga dalka ayuu noo soo maray laakiin waxaan ku amaanay habka wanaagsan oo dalkani u soo maamulay waan ku amaanaa meelna uu ku qaldan yahay meesha ku qaldan waa tilmaam aniga qofna ku xaqiri maayo laakiin kuma aflagaadeynayo madaxweynahayga mana caaynayo xilka markuu ka dagay iyo hadda markuu ka dagay iyo markii horeba labadaba aniga kuma aflagaaday laakiin siyaasad ahaan hadalka ku haboon ayaan ku iraahdaa kaliya halkaas ay dalku ka yimid halkoo maanta taagayaan waad aragtaa dalkan hore ayaa loo wadayaa looma istaagi doono dadka darbiyada ka qeeliyo ay ugu badan yihiin in ay yiraahdaan dalka qori waa in la qaataa lagu boobaa hantida shacabka laakiin dowladnimadeen ayaa wax walba ka weyn halkaas ayaan ku soo goobayaa hadduu aalid insha Allah fiidiyowga aan ugu talgalay inaan ku muujiyo cadeyntii saxda ahayd waad ku maasantahay daawashadaada fadlan la wadaag saaxiibada kaleeto page-kana follow garay oo la garay